kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale barnaamijka xog waran oo xiliyadan oo kale aad si toos ah ugala socotaan telefishinka Kalsan stuudiyaha uu ku leeyahay magaalada London. daawadayaal barnaamijka caawa waxaynu kaga hadlaynaa arrimo muhiim ah oo ku saabsan marxaladaha dalka gaar ahaan siyaasadda Soomaaliya iyo heerka ay marayso iyadoo aanu la soconno toddobaadkan in Soomaaliya ay ahayd meel ay beesha caalamka ilgooniya si weyn ugu haysay waxa booqday xogayaha guud ee qaramada midoobay Kofi Annan iyo wafuud kala duwan oo heer caalami ah oo markaa mas'uuliyiin sare ah waxaana ay la kulmeen madaxda dawladda Soomaaliya iyadoo booqashooyinkaas ay jiraan ayaa dhanka kale waxa sii xoogaystay khilaafkii muddaba soo jiitamayay ee u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa iyadoo khilaafkana uu cirka isku shareeray markii ra'iisul wasaaruhu sameeyay isku shaandhayn xubnaha golaha wasiiradiisa taasoo uu madaxweynuhu si weyn uga hor yimid kuna amray wasiirada inay shaqadooda sii wataan haddaba khilaafkan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo caadi ka noqday siyaasadda Soomaaliya mar walbana iska soo laalaabta ayaanu jecelnahay caawa bal inaynu ilgooniya ku eegno waxa uu salka ku hayo ma jiraan dalal xiriir la leh khilaafkaas oo mar walba iyagu ka shaqeeya in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay iska hor yimaadaan maamul goboleedyada qaarkood xiriir miyay la leeyihiin khilaafka iyo abuuridiisa haddaba arrimahaas oo dhan ayaanu caawa barnaamijka ku eegi doonaa waxaan sidoo kale ku faahfaahin doonaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo mar walba awoodaha dalka isku qabta dastuurka qodobo intee leeg ayuu u kala saaray haddaba intaynaan martida barnaamijka u galin waxaan jecelahay marka hore inaan idiin soo qadimo qodobada madaxweynaha uu ku leeyahay dastuurka ama qeexaya awoodihiisa qodobka sagaashanaad ee xilka iyo awoodaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya awoodaha xilka madaxweynaha ayuu ka hadlayaa qodobkan sagaashanaad number 1 wuxuu ku baaqayaa ama wuxuu ku dhawaaqi karaa madaxweynaha xaaladda degdega ah iyo xaaladda dagaal si waafaqsan sharciga qodobka labaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida qodobka saddexaad madaxweynuhu wuxuu magacaabaa taliyaasha ciidamada heer federaal iyo ka qaadista xilalkooda markii ay soo jeediyaan xubnaha golaha wasiirada qodobka afaraad oo kamida awoodaha madaxweynaha wuxuu magacaabayaa xilka ra'iisul wasaaraha wuxuu xilka ka qaadayaa ama kala dirayaa xukuumadda federaalka haddii ay weydo codka kalsoonida golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah oo cod haldheeriya ku ansixinaya qodobka shanaad wuxuu xilka ka qaadayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya wasiirada wasiiru dawlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada markuu soo jeediyo wasiirka koobaad ama ra'iisul wasaaraha qodobka lixaad wuxuu saxiixaa sharciyada uu soo ansixiyo baarlamaanka federaalku si sharci looga dhigo qodobka toddobaad wuxuu furaa golaha shacabka qodobka sideedaad wuxuu la hadlaa fadhiga gaarka ah ee golaha shacabka sanadkiiba mar qodobka sagaalaad wuxuu la hadli karaa golaha shacbiga mar kasta oo kale oo uu madaxweynuhu doonayo qodobka xubnaha golaha wasiirada muddada ay xilka haynayaan waxa sidoo kale daawadayaal aanu jecelnahay inaynu ka hadalno iyana awoodaha ra'iisul wasaaraha uu ku leeyahay dastuurka qodobka boqolaad xilka iyo awoodaha ra'iisul wasaaraha madaxa xukuumadda federaalka magacaabista iyo xilka qaadista xubnaha golaha wasiirada qodobkan waxaan u malaynayaa inuu ka mid yahay qodobada aanu jecelnahay caawa inaynu ilgooniya ku eegno waayo waxa la isku haysto oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay isku haystaan waa xilka qaadis lagu sameeyay xubnaha golaha wasiirada qaarkood oo xilal kale loo dhiibay halkan waxa ku cad ama xarafka ah oo qodobada awoodaha xilka ra'iisul wasaaraha kamid ah magacaabista iyo xilka qaadista xubnaha golaha wasiirada numberka A ama C waxa kamid ah qodobada
horgeynta golaha shacabka, xubnaha golaha wasiirada iyo barnaamijka xukuumadda si ay u siiyaan kalsooni. qodobka da ama d in uu qabto howlaha kale ee loogu xil saaray dastuurka ama sharci kale oo waafaqsan dastuurka iyo qiyamkiisa. haddaba daawadayaal taasi waxay ahayd warbixintii koobneyd ee aanu idinkaga soo gudbinay dastuurka Soomaaliya u yaala Soomaaliya iyo awoodaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. waxaan jeclahay caawa inaan ku bilaabo oo martiino ah Cabdicasiis Xildhibaan oo isagu kamid ah qoraayaasha Soomaalida isla markaana taxliiliya arrimaha siyaasadda Soomaaliya. arrimo badan oo Soomaalida ku saabsan wax ka qoray sida dhaqanka iyo siyaasadda buugaag ku saabsan ayuu Cabdicasiis Xildhibaan qoray. waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb galaya Axmed Cabdalla Liibaan oo isaguna kamid ah aqoon-yahanka Soomaalida muxallil siyaasiyana ah ama dadka siyaasadda Soomaalida ka hadla ah oo degan magaalada London ayaa isna barnaamijka inagala qayb galaya. aad ama mahadsantihiin sida sharafta leh aad nooga aqbasheen ka soo qayb galka barnaamijka. Cabdicasiis Xildhibaan ayaan marka hore ku bilaabayaa. Cabdicasiis Xildhibaan inta aanan kugu bilaabin waxaan jecelahay inaan dhammaanteen tacsi u dirno taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maanta ku dhintay magaalada Muqdisho kadib markii la sheegay in xanuunkadiisa uu ku soo booday. haye بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan marka hore jecelahay inaan guud ahaan qaybaha bulshada Soomaalida iraahdo marka hore habeen wanaagsan. marka ku xigta waxaan jecelahay inaan anigoo aad iyo aad runtii ula xanuunsanayo geeridii xanuunka badnayd ama degdegta ahayd ee ku timid sidii uu sheegay Cabdulqaadir Nadaara taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed His Excellency ama sareeyo guuto Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil tacsi uga diro guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo qaybaha bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday. waxaan leeyahay ay bahay naxariistii jannaha siiyo. tacsiyo kadib waxay la tahay waxaa maanta la marayaa qofkii damiir leh ama dareen wadaniyadeed ama mid bini'aadanimo heer kii uu ka gudan lahaa marxaladda siyaasadeed dhaqan iyo dhaqaale ama bulsho ay ku jirto jamhuuriyadda Soomaaliya. guud ahaan waxaan aad iyo aad uga xumahay dhawaqyada aan quruxda badnayn ee maalmihii dhaweyd kasoo baxayay hogaamiyaasha dowladda Soomaalida ee ku saabsan inuu khilaaf mar kale soo kala dhex galay. waa ogaa waana la socday runtii in muddo ah in khilaaf jiro, laakiin waxaan islahaa si caqliyad iyo dowladnimada ay ku jirto ayaa loo xallin doonaa waxyaabihii sababay in khilaafkaas isaga uu banaanka u soo baxo. waxaan u kala qaadaynaa labo arrimood. ta koowaad wixii khilaaf shakhsi ah waxaan u daynaynaa ka hadalkeeda shacbiga Soomaaliyeed, laakiin wixii khilaaf dhinaca dastuurka ah ku saabsan waxay la tahay waxaan la wadaagaynaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. sida uu akhrinayay warbixintii koobnayd ee uu jeedinayay Cabdulqaadir Cashar Nadaar ee ku saabsanayd awoodaha la siiyey madaxweynaha iyo tan ra'iisul wasaaraha uu leeyahay. waxaan rabaa in shacbiga Soomaaliyeed ay ogaadaan marka hore in madaxweynuhu awoodaha dhinaca dastuurka ee sheegaya horta waxaan rabaa bal qodobka ugu horeeya inay akhriyaan waa ilaaliyaha hore u dhigaha iyo hirgeliyaha mabaadi'da guud ee dastuurka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya waa madaxweynaha Soomaaliya. ra'iisul wasaaruhuna awoodihiisa waxay ku qoran yihiin warqadii hadda laga akhrinayay ee ahayd waxa awoodihiisu ay la eg tahay. madaxweyne isagu waa hogaamiyaha dowladda waxaan u jeedaa qaybteeda fulinta. wuxuu magacaabaa xilalkana ka qaadi karaa xubnaha golaha wasiirada isaga oo aan wax tala ah isaga oo aan wax muxuu ahaa la tashi kala samaynin madaxda iyo hay'adaha kale ee dowladda. wuxuu horgeliyaa golaha shacbiga. waxaa dhici karta qodobada dadka qaar ay ku weerarsan yihiin in si fiican loo cadeeyo. qodobka sheegaya shanaad madaxweynaha yacni qodobka 9aad firqadiisa sanaad waxay leedahay wuxuu xilka ka qaadayaa wasiirada wasiir dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada marka uu soo jeediyo
wasiirka koowaad ee golaha wasiirada ee jamhuuriyadda soomaaliya oo ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu yani one of the versions waxyaabaha keenaya in iska horimaad fara badan uu dhaca waxaa ka mid ah xitaa dastuurka aan caawa gacanta ku haynaa wuxuu leeyahay versions qaybo kala duwan oo ciddii iyadu danaynaysa halka uu ka anfacayo dastuurka ay wax ka bedel kaga samaysay sida furitaankii golaha baarlamanka waxay xubnaha golaha baarlamanka markiiba ansaxsadeen madaxweynaha oo ah mid ka mid a dastuurka oo sheegaya qodobkan ah inuu isagu kala diri karo muxuu ahaa golaha baarlamanka ee soomaaliya haddii xulgadasho la-aan ay timaado waxay meeshaba ka saareen awooddii madaxweynaha ay ahayd inuu isagu kala diri karo anuu ma garan karo waxa diidaya madaxweynuhu wixii isagaa ra-iisul wasaaraha soo magacaaba shacbiga soomaaliyeedna isagaa contractiga la galay inuu waxu qabanayo haddii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu iska hor yimaadaan waxay la tahay hay-addii yani la xisaabtami lahayd inay baarlamanka tahay madaxweynuhuna wuxuu xilka ka qaadi karaa oo keliya marka baarlamanka uu ka waayo kalsoonida laakiin arrintaasi waxay shacbigu gelisay laakiin xildhibaan arrinta waxaan malaynayaa inaad ku yaro dheeraatay waxaan rabnaa inaan si toosa u abaarno annagoo meelo kale u marmarin khilaafka wuu jiray meelihii uu ka bilowday waxaa ka mid ahaa taliyaashii booliiska iyo nabad sugidda iyo xilalkii laga qaaday oo la isku qabtay taliyihii sambaloolshe iyo taliyii kaloo la magacaabay arrimahaas way soo socotay arrintii way socotay ilaa galabta ayaa la marayaa oo ra-iisul wasaaruhu haddana mar kale uu sameeyey xil kumeel gaara uu magacaabay sareeyo guuto gasgas inuu booliiska sii qabto markii uu dhintay allah u naxariistay galabta taliyihii ciidanka booliiska soomaaliyeed meeshaana waxaa noogu qoran qodobada awoodaha madaxweynaha waxaa ka mid ah inuu magacaabayo taliyaasha ciidamada ma isleedahay ra-iisul wasaaruhu wax badan buu aada u malaysaa in uu soo dhexgalayo shaqadii madaxweynaha sida ku cad qodobka 9aad xilka iyo awoodaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka qodobka 3aad wuxuu leeyahay qodobka 2aad wuxuu leeyahay madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliya qodobka 3aad wuxuu magacaabaa taliyaasha ciidamada heer federaal wuxuuna xil isla markaana ka qaada xilalkooda waa marka ay soo jeediyaan golaha wasiirada arrintan waxoogaa mugdi ah ku jirta madaxweynuhu wuxuu leeyahay xuquuqo lagu dhowray dastuurka kuwaas oo sheegaya isagu inuu yahay mataqaanaa taliyihii guud ee taliska ciidamada ee Soomaaliya iyo awoodda inuu xilka u magacaabi karo kana qaadi karo anu ma garanayo waa markii 3aad waxaa leedahay wasaaraha ku dhawaa magacaabistan uu magacaabay waxay daba socotaa soo jeedin waaye ma leedahay sida halkan ku qoran ra-iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay cidda qabanaysa mas'uuliyadahaas iyaga soo jeedin maadaama ay iyagu laftooda soo geli karaan muxuu ahaa guddidii fulinta yani dadkii shaqaynayay waxaan rabaa inay mid kuu caddaato dhinaca khaladaadku ay ka jiraan ma aha cidda magacaabaysa waa halkaas halka uu khaladka ku jiro waxaan leeyahay madaxweynuhu isagaa magacaabaya laakiin waxaa soo jeedinaya golaha wasiirada sida ku qoran dastuurka khaladka wuxuu ka jiraa waa kii 3aad in xitaa galabta geeridii allahu naxariistee maxamed sheekh xasan ismaaciil loo magacaabo taliya ku-xigeenkii ciidanka booliiska hadal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxay ahayd waxaa jooga ku-samihii madaxweynuhu ra-iisul baarlamaanka fadhiya haddii sida dastuurka uu sheegayo loo raacayo macnaha ra-iisul baarlamaanka in loo dhiiba ayay ahayd horta meesha aan kasii qabto ra-iisul baarlamaanka yaa joogo kumeel gaarkaas oo ah jagadii madaxweynaha hadduu maqan yahay xilka sii hayo inuu magacaabo jagada jaranaalka hadda caawa la magacaabay gaskas booskaas inuu buuxiyo waxaa laga rabay inuu magacaabo gudoomiyaha baarlamaanka oo kusimaha madaxweynaha shaqana kuma laha inuu magacaabo ra-iisul wasaaraha taasi waa xadgudub uu ku sameynaya ra-iisul wasaaraha shaqadiisa shaqo ka baxsan taas u keenaysa khilaafka dastuuriga mar walba laakiin ma isweydiin karnaa maadaama taliyihii uu dhintay booskii shaqadiina bannaan tahay xaaladda waddanka lagu jirana aada og tahay howlgallada socda iyo sida loola dagaalamayo kooxaha dowladda kasoo horjeeda aada og tahay inaan la dayn karin madaxweynihiina safar ku maqan yahay marka ay tani tahay kumeel gaar oo sida ku cad dastuurka in awood qaybsiga laftirkiisa uu beela yahay nidaamka iyo waxa lala sugayo madaxweynaha laakiin taliya ku-xigeenkii
uu xilka sii qaban karo sidii hadda ka horba dhacday markii laga qaaday taliyihii Sambaloolshe xilka taliyaashii ku xigay ayaa hawsha sii qabanayay marka taasoo iska caadi maahan runtii wax walba caadi oo lama dhihi karo sababtoo dastuur meesha yaalo ku meel gaar ah dastuurka markaas waxa uu qorayo in lagu dhaqmo waa qodobada marka waxa meesha jooga haduu madaxweynaha maqan yahay ninka xilkiisa qabanayo iyo xilka madaxweynaha haduu maqan yahay waxa hayo gudoomiyaha baarlamaanka Professor Jawaari marka waxa laga rabay inuu jagada magacaabo ku meel gaar ahaanta Professor Jawaari ee ma aan ra'iisul wasaare inuu soo faragashto marka qaladka halkaas oo ka imaanaya waa tahay marka aan dib kugu soo celiyo arrimahan aad u jeedo oo mar walba dhaca maxay salka ku hayaan aragtidaada hadda waxaan akhrineynay qodobo dastuurka ah oo aad moodo laftirkooda inay si isaga hor imaanayaan oo aan la si sax loo kala saarin mushkiladda horta khilaafka ra'iisul wasaareyaasha Soomaaliya ma ahan mid ka bilaabanayso caawa wax noo bilaabanayo ma wax soo jireen xataa dawladii Soomaaliya 60kii markii xukunka aan isticmaalka aan ka Soomaaliya ay gaartay Soomaaliya isku biirtay waqooyi koonfur Israaciil 1900 madaxweynihii aadan cadde waxay iska hor imaadeen ra'iisul wasaarihii markaas isaga xukunka marka la joogay oo ahaa Cabdirashiid oo la isku hayay maxaan raacnaa reer galbeedka ma soo raacnaa reer barigii labadii awood adduunka kadib ku soo noqo hadana madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Sharmaarke iyo ra'iisul wasaarihiisii muxuu ahaa isagana cigaal halkaas ayuu isqabsiga ka sii socday xukuumadii marka hadda waxaan ku sii dheeraada mar raba laakiin wax mar walba socdo qodobka 78 ee dastuurka 1960kii marka ku noqono sidaan kale ayuu iskaaga hor imaanaya marka dasaatiirta Soomaaliya ma ahan mid cusub dastuurkan waa copycat ayaa la dhihi karaa xataa oo meel gaarka ah markii dastuurkii 60ka akhrisid iyo dastuurkii qodobka 78 ee dastuurkii 1960kii markii loo noqdo wuxuu sheegayaa awoodaha xilka inuu ka qaadi karo madaxweynaha baarlamaankan uu kala tiri daro laakiin halkan waa laga bedelo sidoo hadaba noo sheegay walaalkay Cabdicasiis oo hadda ka dhawaajiyay marka mushkiladda Soomaaliya inay haysato waxa uu dawlad ma nahay anaga nidaamka dawladnimada ma gaarnay marka tatawurka bini aadanka iyo isbedelka taariikhda basharka markii la fiiriyo bini aadanka dawlad markii ruuxaantii waxa lagu dhawaaqay bini aadanku wuxuu iska ahaa dabiici dad iska nool oo si dabiici bashar dabiici iska nool qabaa'il meel iska dal tuulooyin iska degan oo aan nidaam hoosaad ah ku nool ay ahaan jireen basharka bini aadanka tatawur ayaa la sameeyay isbedel ayaa bilowday 1618 ilaa 1648 dagaalkii ka socday Monastir Germany ayaa waxa lagu gaaray horta dawlad markii ugu horeysay la asaasay oo dawlad oo sovereign state la sameeyay wax la yiraahdo oo nin bashar state oo qof soo xor ah dawlad ay hogaamiso markaas ayuu bilowday laakiin anaga nidaamka dawladnimada ma gaarin oo wali waxaan ku jirnaa nidaamkii dabiiciga ah oo qabiilka ah ayaan ku jirnaa dawladnimo ma gaarin oo xataa markii la fiirisid habka awood qaybsiga beelaha Soomaaliyeed waxay ku saleysan yihiin 4.5 ilaa hadartan dawladda jirto marka qabiilkii wali kama gudbin mid kale waxa jirta dhibaato ah dagaal sokeey ayaan galnay oo muddo 22 sano aan ku soo jirnay kalsoonidii ayaa dhuntay marka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dhibaatada ka dhex taagan mushkiladda ma ahan dastuuri kaliya waa mushkilad xataa ah dhinaca beelaha ah oo nin walba oo beeshiisa wax u jiidanayo oo rabo inuu wax helo hadda markaa fiirisid maamulka baydhabo hadda madaxweynaha markuu tagay shalay oo kale uu ka qudbeynay wuxuu yiri dastuur ayaan sameysanaynaa marka dastuur looma baahna aniga shakhsiyan sida aaminsanahay dawlad Soomaaliya oo kale ah oo federaal ah oo yar maamul goboleed meel yaalo uma baahna inuu sameysto dastuur wax ah hadduu dastuur sameysto waxa imaanaya iska hor dhimaad ka hor imaanaya dawladda federaalka ahayd iyo dawladii hoose oo lagu sameeyay baydhabo 3 gobol 6 gobol 7 gobol waxay doontaan naqato taas waa baab kale laakiin inay dastuur sameysato hadaa tiraahdo dhibaato dhacayso waa in la siiyo awood hoose ee leedahay ee isku maamusho dawlad goboleedka meesha laga sameynayo waa maadsan tahay Axmed waxaan la xiriirnay xafiiska ra'iisul wasaaraha xubna ka tirsan oo ka gaabsaday inay magacooda sheegaan waxaan wax ka weydiinay arrimaha khilaafka waxay sheegeen in ra'iisul wasaaruhu uu xaq u leeyahay talaabada uu qaaday marka aan ka hadlayno dhinaca isku shaandhaynta golaha wasiirada waxay yiraahdeen wasiir cusub laguma soo dirin golaha wasiirada wasiir golaha wasiirada ku jirayna shaqadii lagama saarin ra'iisul wasaaraha shaqadiisa waxaa kamid ah in shaqooyinkii yaalay qofkii uu isiraado kan uu ku fiican yahay kan inuu u wareejiyo marka taasna waxay yiraahdeen waxay kamid tahay howlaha shaqo ee ra'iisul wasaaraha hor yaala iyo mas'uuliyadda uu qaaday
taama ma aragta adiga waxaan jeclaan lahaa inaan ku noqdo inta aan su-aashaas iyada ka jawaabin halbeega siyaasiyiinta horseedka ugu ah fashilka sii soconaya ee ka socda Soomaaliya ayaa ah waxaa يعني ما وقتها إن أنا نحقق هذا كله حنا واجبات جديا إن صارن حنا جعلان لها فكر كي قارن تاسا إن كعبره وحي كم المرسيودان أنا وحن قبا جمهورية الصومالية ضد كدوا إسدلين ولا لها علوبة الصومالية عرات كله يعني مركز سياسي وسووا فشل مه إنه صنع مرسيا سياسيات كان دجانين وحمان تلا يسوها يستا قبيل وحلوها يستا إن سياسية يقول يسوي يعني المؤامرات كتمت مقالة الجروة مؤامرات كتمت مقالة بيضاء لكن أرنتها حق السياسة الصومالية وسيم مرجنيسا ونسيف وجينيسا أنا قصدي أنقذ وحنجعلان لها إن رجع إسحياء إسكو هيا أما كهر دم يتلاد الصومالية إن ندين هالكذا يعني الله سوق هذا الطبيعي هذه أن سؤال شيء ذاك جوابه سيدا أقرأيه قضب كالصدحات فرقة دي أهد الشيء قضب كصدحات الدستور وحول رئيس الوزراء أود الصينية قضب كسي قضب كها بقولات قضب كسي قضب كباء وحول رئيس الوزراء وحق الصينية إنه مجعب حل كان كقاضي يعني حولها قلها وزير ذا حكومة دي سكت لكن مرة إن ولا تشهد مدحوينها إنه لا تشهد حكومة جرتماشة ندك لو حل الربع إن شق حاول قال لك شق رئيسي واحد يسبدل إياه و معها حفيزكي قلبكي هنتدي وحي اللي شقيني ماشي أنا كم بحياة واحد يسبدل إياه ولا باش شخصيته ولا بقف وشاركي ولا سوى قال كلام بحياة حفيزكي ومسؤول كأها سياسي كاري أما مسؤول كارو الصومالية أيانا هو شيء قمانية لكن سؤالها مركزين عكرا لك أنا واحد عكرت ضدك وين السكالة ودجان حن رجينا يا إنه جرى لولن يهردن كأدن وترتن كا حق دستوري أي دبعت هذا ويالن يسا أما أود ويالن دونت إن يده جامسه لكن حلبان هدي رئيس الوزراء هسيد عاشقتي shaqadiisii uu qabsaday uusan wax dhibaato u geysan awoodihii madaxweynaha oo wasiiradiisii isku kala bedelay waad aragtay madaxweynaha qoraalka uu soo saaray ee aadka u adkaa ee looga hadlayay xilka qaadista ama xil kala wareejinta golaha wasiirada oo la yiri qof walba waa inuu shaqadiisii qabsadaa maxaa keenay madaxweynuhu inuu luqad intaa la ku hadlo oo uu muujiyo inuu aad uga carooday waxa dhacay hadii aad tilmaantay shaqadii ra'iisul wasaaraha inay ahayd waxaan rajaynayaa inaan qodobka inaan ku noqdo horta warqadii xafiiska madaxweynaha ka soo baxday waa tan iyada oo qoran laakiin warqadan anigu ma aaminsan inay tahay luqadii madaxweynaha Soomaaliya yani uu kaga jawaabayay khilaafkii 25kii bishan October soo kala dhaxgalay ee shaaca noqday isaga iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa halkan ku qoran waxa nasiib darro ah waxaan nasiib darro weyn ah in iyada oo in hor yeelaan dhamaystirka barnaamijyada kor ku xusan iyo waliba ansixinta hindisa sharciyada muhiimka ah oo ah dawlad dhisida in ra'iisul wasaaruhu si isdaba joog ah u soo saaro go'aano tashwiish ku abuuraya geedi u socodka dawladnimada iyo wada shaqaynta hay'adaha dawliga ah aniga luqad dawladeed kuma qornayn hadalkaas inuu arko inuu yahay hadal ku haboon يعني أما اللي به كره حفيزك مدحوينها الصومالي وكسب هذا كان مرها وحقري رجعوا قيبسن كما صحيحنا مدحوينها وروح أيضا كويلا معي لكن مدحوينها ما بينين شقدينا سيدي بوسعتها إلى هذا وسيردين وحقاتين قرال كان صوبحي وصحافة اللوقيبي وحيلتها تا معناه waxay tahay in madaxweynuhu ku qanacsan yahay qoraalkan hadii uu yahay qoraal uu madaxweynaha aanu ka soo bixin wuxuu dhihi lahaa ama madaxtooyada way beenin lahayd qoraalkan wuxuu ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya waxa la iigu soo diray email waxaana lagu sheegay warka hadda aad sheegaysid iyo intii aan akhriyay iyo in kale oo halkan ku qoran oo madaxweynuhu uu ku amraayay go'aankaasi wax kama jiraan inuu ku tilmaamay isla markaana ku amraayay dhammaan saraakiisha iyo howlwadeennada dawladda inay shaqadoodii sidoo ay sii wataan anigu waxaan arkaa inayna ahayn luqad diblomaasiyadeed ama luqad aan dhihi karo diblomaasi ka tirsan xafiiska madaxweynaha waxayna jawaab u tahay lama dhihi karo waxa madaxweynaha xafiiska madaxweynaha ka soo baxday
cabdicasiis iyo madaxweynaha ma dhihin iyo lama socdo wax macquula ma ahan xafiiska madaxweynaha wixii kasoo baxa oo warqad sharci ah warqadana way ku saxiixan tahay xafiiska madaxweynaha inay kasoo baxday jamhuuriyadda federaalka soomaaliya idaacadaha adduunka o dhan loo qeybiyey waa war saxa marka ra-iisul wasaaraha xadgudub waa sameeyey xadgudubna caawa ma ah wuxuu sameeyey keliya hore ayuu u sameeyey taliyihii booliiska caaw dhintay allah u naxariisto ayuu magacaabay taasna shaqadiisa ma ahan totally sida qodobka 9aad noogu qoran waxay sheegaysaa inuu u yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida madaxweynaha uuna yahay ninka magacaaba jagooyinka ciidamada taliyaasha laakiin taas haddaad u aragto inuu ku qaldanaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha miyaanu ku qaldanayn isna oo shaqadii ra-iisul wasaaraha ay tahay in wasiiradiisii u shaqaynayay uu qofba shaqo u dhiibo kuma qaldano sababtoo madaxweynaha waa ninkii dhammaay barnaamijka 2016 aan higsanayno barnaamijkii la sameeyey ah marka barnaamijkaas la sameeyey awoodeed ra-isul wasaaraha waxaa loo soo magacaabay inuu barnaamijkaas laysla qabto hawshan waa hawl guud oo laysla qabanayo marka madaxweynaha keligiis ra-isul wasaaraha dad ma kala diri karo golaha wasiirada inkastoo ugu qorneyn faqrad ahaan laakiin sharciyan wuxuu ku qasban yahay inuu la tashi la sameeyo madaxweynaha laakiin kuma qorno meesha qodobka kuma qorno laakiin qodobka waa dastuurkan aan dastuur laakiin midii hore waxaad tiri madaxweyne ra-isul wasaaruhu ku qaldanaa inuu magacaabo taliyaasha ciidamada shaqadiisa ma ahayn dastuurka madaxweynaha ayuu siinaya waa sax saas baa ku qoran meesha laakiin ku dhamaystir ma dhamaystirto waxay sug waa ku naqnaqan waa helata waxay sug hadal wataa dhamaystirto taliyaasha ciidamada waxa iskale madaxweynaha inuu magacaabo taliyaha booliiska ee hadda dhintay caawa jarnaalka الله ونحرسته وحى مجاعي رئيس الوزراء مدحوينها كما هذا مركب مدحوينها ورقد هذا وصوص صاري وعبشة وحى الله بهنا إنه صوص صاروا مركب لما مجاعي جولاي مثل جون بقى تليه بوليسك حلقاس أي واحد وصل مدحوينها قلد أيو كل هاي إنه أنت عامس نعضو ورئيس الوزراء هنا أقرته يأساق إن إسكود عسين حل هارو مركب واحد عاو بلعبنا يا مهان لكن قضبك مدحوينها أود الصينية inuu magacaabi karo taliyaasha booliiska waxaa sii raacsan markii ay soo jeediyaan xubnaha golaha wasiirada sidaad ogtahayna go'aamada golaha wasiirada ay gaaraan ra-iisul wasaaruhu wuxuu magacaabo golaha wasiirada way ansixiyaan waa ku fahamsanaa waa dhibaatada ay ka taagan tahay golaha aan qabi qoraalka dastuurka Soomaaliya u yaal hadda dhibaatada ka taagan oo mar walba isku dhaca keenaya ayay ka mid tahay qodobada horteen yaal caaw waa tahay su'aal kale waxaan jeclaan lahaa in yar ku darsada Cabdulqaadir qodobku waa cad yahay ma garanayo afka Soomaaliga nooc kale oo ay dadka Soomaaliyeed wax ku fahmaan halkan waxa ku qoran madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa waa qodobka 9aad firqadiisa 3 wuxuu magacaabaa taliyayaasha ciidamada heer federaal iyo xilka qaadistooda waana magacaaba xilkana waa ka qaada laakiin waa marka ay soo jeediyaan xubnaha golaha wasiirada oo uu gudoomiye u yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hadalkaas waa cad yahay ila tahay رئيس الوزراء حد جذب مصر وين ومجعابي كرا وسود جيدين كرا قلها وزيرده مركي أنصحيه أن مدحوينها الله قربه إنه أنصحيه. أوكي حبناها سياسيين تاجر سياسة رئيس الوزراء وحيكون دوديان رئيس الوزراء إنه كصحنا حلك لقى قاضي وزير كي عدالة لقى بدل شقة وحيليهين وحيمد إسقاط بدن أو محكمة السرية قدوميها محكمة السرية وزير كعدالة dhibaato badan baa halka ka jirta arintii kale waxa la isku qabtay madaxdii garsoorka iyo sidii shirki garsoorka loo nadaamiyay waxyaabo badan baa la isku qabtay adiga taa ma aragtaa anigu waa la hadlay dhowr jeer xiriirna waa leenahay wasiirka garsoorka iyo dastuurka faarax sheekh cabdulqaadir waxaan rajaynayaa ducaa uu dhageysanayana aad baan ugu faraxsanaan lahaa waxaan rabaa inaan kuu sheego wasiirku muddadii wasiirku ahaa wuxuu ka shaqaynayay howlihii ay dowladda u igmatay qabashadooda waxaa dhici karta waajibaadku weli ma dhammaan waa qabyo ilaa laga gaaro in jamhuuriyadda Soomaaliya dadkeedu ay doortaan ama wakiiladii bedeli lahaa kuwa maanta jira hawshiisii inay weli taagan tahay ama isagoo ha qabto ama qof kale ha qabto waxaa lagama maarmaan ah haddii tallaabada ورئيس الوزراء قاضي وكل بدلا يهول لدينا دي حفيز كاس السجع وزير كوزارة الجرسور كدستور كيتي محي تحنا الله حولها لبده وزير لبده حفيز الإسودة فيه وحيز بدلا يا وشخصيات ما أهن الحفيزية دي حولها سيجا قبنا أي ماشى كبحيان أنا وسيد أصلا كادين عكله فارح شيء عبد القادر
malaha mas-uuliyadda malaha isqabadka ka dhex jira garsoorka iyo cadaaladda soomaaliya waxaa lagu eedeeyaa inay kamid tahay dalalka high corruptionka uu ka jiro. waxaan markhaatiyo waxaan u hayaa dadka soomaaliyeed caawo warkaa isaga ha dhageysteen. waxaan markhaatiyo u hayaa in xadgudub fara badan uu ka jiro yani laamaha garsoorka ee soomaaliya. waa khasab haddii wasaaradiisu ay nasiibkeedu ay noqotay inay iyadu hoos timaado wax ka qabashadeedu isagaa looga fadhiya. taas ma ahan runtii marka sidaas loo dhiga ma aha. mushkiladda waa awood qaybsi sababtoo dastuur kuli lama qorin. soomaaliyana waa qabaa'il ilaa hadda qabiilka lagama gudbin oo dowlad nidaam system dowli ah umana gudbin. oo mushkiladana haysato soomaaliya waa democracy and leadership. waa soomaaliya kaliya wadamada africa oo dhan soomaaliyana waa ugu haysataa corruptionka iyo leadershipkana aad ayuu u liitaa. haddii leadership iyo democracy soomaaliya ay ka jirto dhibaatadan bacaawo lama gaari lahayn. marka faarax kaliya ma ahan sababtoo ah waxaa la rabaa nin walba 2016 intaan la gaarin in dastuurka wuxuu rabo uu ku qorto. Puntland waxa doonta ayay ku soo qortay dastuurkan ku meel gaarka ah sidaan wada ognahay oo qofna aysan ka qarsanayn oo la wada ogyahay. sidaa darteed ma ahan waxa la doonayaa faarax meesha in laga saaro oo nin madaxweynaha ay isu dhow yihiin. marka arinta hoos aan u sii dhacdhacno Soomaali ahaan arinta jirtana aan banaanka keenno ma ahan faarax waa bixi karaa waa imaari karaa laakiin mushkiladdu waxay ka taagan tahay yaa bedelaya faarax oo nin madaxweynaha keensada marka ma bedeli karo ayuu dhinacaasna awoodiisu madaxweynaha u isticmaalaa. laakiin arin kale oo waxaa jirta dadka iyaguna arrimaha siyaasadda Soomaaliya aad u eega waxay leeyihiin maxaa isku soo beegay safarkii ra'iisul wasaaraha uu ku tagay Puntland heshiisyadii uu soo saxiixay kulamadii uu la qaatay madaxweynaha Puntland iyo soo noqoshadiisii markii uu soo noqday in yar uu joogay Muqdisho iyo isbedelkan golaha wasiirada wax xiriira miyaad isleedahay arintaa way ku lug leedahay Puntland؟ run ahaantii Puntland qaska Soomaaliya ka socdo koonfurta Soomaaliya oo dhan iyada ayaaba ka mas'uul ah aniga shakhsiyan saas ayaan aaminsanahay. sidee u dhihi kartaa Puntland waxaaba tahay maamulkan hadda jira maamulka federaalka waa qaladka dhan dhibaatada dhan Garowe iyo Garowe federaalka Soomaaliya hooyo federaal ma ahan waa qaska Soomaaliya ka taagan runtii mushkiladda aabaha Soomaaliya qaskeeda ayaa la dhihi karaa maamulka gobolka aniga هذا شعب وحنا كنا مستر شعب كدقن بنتلان أن كلا صارنا يدتك هو جامية بنتلان أنا كم هلا شعب كبنتلان دقن وادد ولا لهنا وادد صوماليات وادد حق ولا صومالي إن يكون ولا ذان وحول بنا يكقبصدان حقنا ولا waxaan ka hadlayaa maamulka Puntland marka waa inaan kala saarno Soomaalida mushkiladna haysato marka hadlaysi Puntland markaan dhaw wuxuu u qaadanayaa inaan qabiil ka hadlayo qabiil kama hadlayo systemka nidaamka hogaaminaya maamulka Puntland isku sheega ayaan ka hadlayaa qaladka dhan caawa salka sal uma dhigin federaal inaan laga bixin ku meel gaar ninka salka u dhigay waa maamulka Puntland dastuurkan caawa horteena yaalo oo isku naqnaqanayo oo aan awoodaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha aan si toos ah u cadeynaynin waa meeshii lagu soo dhisay Garowe 1 iyo Garowe 2 gudoomiyaha baarlamaanka hadda Jawaari ragii dastuurka wax ka sii jiro marka Puntland kaligeeda sameysay mushkiladda taas waa baabaan ku dhameystira ay baa si wada barnaamijka ku dhameystira marka ra'iisul wasaaraha markuu xagga tagay wuxuu soo saxiixay arrimo ay ka mid tahay shahaado in Puntland lagu qoro in maamul goboleed dawladii madaxweynihii oo aan wada ogeyn oo lagu wada saxiixay magaalada Muqdisho qodobadii lagu saxiixay in lagu dhiso maamulka gobolada dhexe in asagan uu halkaas ku soo saxiixay in galmudug ay ka mid noqoto Puntland oo aan dhinacaas ay iyadana qaladaadku ka sii taas laakiin ra'iisul wasaaraha kaliya ismaa international community-ga madaxweynaha Soomaaliya cid kasta ku taageertay heshiiskaas waa taageersanay dhahay waxaan jecelahay in yar inaan wax ka yiraahdo hadalkii anigu ma ihi afayaan u hadlayo Puntland laakiin Puntland iyo Garowe waxaan ku weydiin lahaa goorta ay noqdeen threat ku noqdeen dadka Soomaaliyeed waxaan jecelahay haddii dadkooda iyo hogaamiyaashoodu ay qaateen go'aanka ah inta laga helay hanaan dawladnimo oo sugan ama xasiloon oo ka hana qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliya yani waxa loo diidayo mid kale Puntland qaranka Soomaaliyeed abaal bay gashadeen kooxaha aan wanaaga wadin duntooduna ay wanaagsaneen ee dariiqada Soomaaliya guud ahaan isbaarooyinka wali ay u yaalaan
wiilashooduna maalin kasta dhiigga lagaga daadinayo ayay 4500 oo ka tirsan ciidamada Puntland ugu gurmadeen magaalada Muqdisho dowladnimada maanta la haystaa been isma sheegay laakiin dad badan ku doodaya inay hadda Puntland bay u soo dirto waagaas madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ayaa ka dalbaday markii madaxweyne kale uu yimid wuxuudii waa la hareen hay taas soo saxba aan ka jawaabo hadii ruux leeyahay wixii xun baxaa waa askari Puntland hanaan sugan أنا ما رحيو عبد الولي محمد علي قاسو مدحوينها بنتلان وهبين دويتو دادك اللي هاللي وحو شاقي عيد كستا وعوانيسا هذين ماجورتي أما هذين ماينورتي عبشودو ميركز الصومالية واكي جرتا لكن ميدا ايا قول در السياسة ديدا محا حافظها اتكتي ميدو ديدي اني هنان كوودو او كالي او دستور كحد الجيرا ku qasba in shahaadooyinka dugsiyada waxbarashada ay xaafidiyeen ku yaala loo aqoonsado waxa ku qasbay ana ku sheegay waxa ku qasbay wax weyn ma waxa ku qasbay hadda ayaa ku sheegaya waxa ku qasbay ayaa hadda ku sheegaya asaga ayaa diidan inaa wax sameeysto magaalada Muqdisho in loo sameeyo maamul goboleed yaa diidan dastuurkan ku meel gaarka Puntland lagu soo sameeyay ayaa diidan asaga markuu wax sameeyay asaga sameeyay asaga ilama tasha marka aniga in lagu qasbo muwaadinimada Soomaaliya ma jirto dimuqraasi iyo leadership ayaa dhibaatada ka taagan كارلينا حقائق دباتة ما يسوق سوماليا مدكلا ما وصل أنا يسمجالي إن لبا معمول كصعده إن قل مدق ليراد هالكان ليراد وبنتلان وحش قينا يا ما أهان لبا معمول إن هذا اللي قبل ليراد هالكان الدنيا سدح قبل هالكان عاو موضوع لكن أكو صوت هامرك الدستور كأنه قلدية هاي واحد أنا وحي وصل تاسان وقاطي رئيس الوزراء وحكدم رئيس الوزراء waxaan kala diro golaha wasiirada isku shaacay Puntland ka dambeeyso haduusan Puntland tagi lahayn oo watashigaas la soo sameyn lahayn Cabdiweli gaas arintan ma sameyn lahayn waa maasata telefoonada ayaan gali doonaa dadka aragtidooda waa soo siin karaan xubnaha qoyskaaga wakiilada uga Jamhuuriyadda Soomaaliya ama hannaanka dawladnimada ee Soomaaliya uga qayb galaya xagee ku maqnaayeen markii Puntland hada mushkilada dhibaatada weyn ay ka taagan tahay waxa way magaalada Muqdisho hada canshuurta waxa laga qaadaa dekada Muqdisho kaliya waxa lagu maamulaa wasiirada sheeganaya inay Puntland ka yimaadeen dekada boosaaso canshuurta ka soo baxdo waxa lagu maamulaa gobolka Puntland lama soo gaarsiiyay mashaakilka gobolada koonfureed xamar laba keeno telefoonka hello assalaamu calaykum wa calaykum assalaam walaal magacaaga meesha joogto waxa la yiraahdaa magacayga Hanad waxaan ka soo hadlayaa London ayaa Hanad waa la socotaa caawa dooda si fiican baa la socdaa waa dood muhiim ah dood xasaasi ah aad iyo aad u falanqeynaysaan aniga laba eray ayaan rabaa inaan ka iraahdo doodan haye labada eray aan ka dhahayo waxa weeye meeshan dhibka iyo qabsiga Soomaaliya ragaadsaday waa mid bulshada Soomaaliyeed rajadeeda lumiyay mar walba dhibaato weyn ku haysa haye dhibaatooyin badan baa la soo maray wadanka prime minister iyo madaxweynaha soo xaganaya rajada Soomaalida kashay rajada Soomaalida kashana waxay ahayd in laga gudbo xagashadaas haye mar alla markii rajadii ay soo wanaagsanaato oo silsileeyahay gabagabay maraysaa geedi socod baa lagu jiraa dalka wax isbedel baa ka dhacaya waxaa soo baxaya caqabado markaa ku imaanaya qabaa'ilaysi iyo garabaysi iyo dana gaar ah qolooyin wato oo geedi socodkii dawladda markaa hoggaanka haysay ka hor imaanaya hanad waqti badan ma hayno su'aal baan ku weydiinayaa mawduuceena ku saabsan aragtidaada taas ay ku wajahan tahay hadda waxaa jira khilaafkii ugu xumaa muddooyinkan ee dhexmara madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha adigu sidee u aragtaa khilaafkaas khilaafka waxaan u arkaa inuu sababteeda leeyahay ra'iisul wasaaraha eedeedana uu qaadanayo ra'iisul wasaaraha بعدما رئيس الوزراء وسميه فعل مركز أبورية خلاف كاسو إنكو أكيد سعود كالدولة ده يحبك أن تكسني 2016 وما تستطيع هنا تفكر كقوة جهن سيدا دواركتو رئيس الوزراء إن يكولتها إنه يسوي كدم بيو خلافك وما تستطيع وفكر ك لجيستها نصوعي هلو قفك لأيام نصوعي هلو السلام عليكم ولا المكو مقلنو حوغا عدكاغا كورغاد مقعاغا مايا هلو 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 هلو
ka xunnahay qofkaas waana maqli waaye waxaan jecelnahay inaan sii soconno oo barnaamijkeena aan guda galno waan filayaa in waxoogaa cilada yaroo ku jirta la hagaajin doono aan ku soo noqdo saaxiibkeen markii ugu dambeysay wuxuu yiri ra'iisul wasaaruhu hadaan u safri lahayn Puntland xaaladdu intaa way ka wanaagsanaan lahayd laakiin isaga waxa ka dhaadhacsan in dhibaatadu ay ka socoto Puntland oo ra'iisul wasaaruhu uu taageero kaga haysto Puntland khilaafka isaga iyo madaxweynaha u dhaxeeya waxaan jeclaan lahaa marka hore isla iyadaan su'aal kugu soo celiyo oo ah waxaan garan waayay socdaalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo ku tagay Puntland maxay kaga bedelan tahay booqashadii ka horeysay ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Alxaaji Xasan Sheekh Maxamuud oo ku tagay Puntland يعني waxa la rabaa inaanan guuldarro kasta oo siyaasadeed oo timaada laakiin waxa kaga duwan tahay markuu madaxweynuhu soo noqday khilaaf ma dhicin haddana khilaaf baa dhacay iyada ka dambeysay Puntland buu ku leeyahay Puntland waxay noqotay khilaaf ka keenay xaqaa'iq ma waxay ku fahamsiiyay Puntland marka waxay noqotay cudur dadka ku dhaca cudur dadka ku dhaca ma ahan Puntland cudur dadka ku dhaca ma ahan waxa fiirsan ra'iisul wasaaraha markuu tagay Puntland hadda habkay ula dhaqantay ra'iisul wasaaraha nafsadiisa aan fiirino laba calan ayaa la dhinac suray Soomaaliya mushkilada ka taagan federaalka ma fahamsano waxay u dhaqmaysaa inay tahay dawlad hadda habeen hore waxaan joognay telefishinka Royal waxa la hadlayay wasiir ka tirsan wasiirada Puntland ayaa dooda nagala qayb galay wuxuu yiri Puntland waa dawlad macnaheedu dawlad ma fahamtay waa kayaan siyaasi ah oo iskiis u taagan marka waa sidii Soomaaliland oo kale marka si toos ah u sheegato inay Soomaaliya ka go'day dhibkana ha naga qaado ma fahamtay marka taas waa baab laakiin dhibka ay kugu hayso adiga laakiin calanka Puntland kaliya ma aha calanka kasta oo sameeyay calan uu leeyahay maya calan leedahay kala saar markuu madaxweynaha ka digay Kismaayo calan inta loo shiray looma tumin muusikadii Jubbaland looma tumin laakiin markuu ka tagay asaga nafsidiisa Puntland waxa la tumaa calanka inuu yahay dawlad kale ciidamadii ayaa safanaya hatta waxa ka qaldan diblomaasiyadda dawladda Puntland sheeganayso habka diblomaasiyadda ayaa ka qalsan nidaamka system toos ayaa uga qaldan hello waana runtii soo sheegnaa hello waa ka xunnahay marka laakiin mushkiladda meesha taagan waxay tahay haddii la yiraahdo wax kasta Puntland ayaa mas'uulka Puntland taas ma wax walba mas'uul Puntland kama ah laakiin qaladaadka hadda jira markaan fiirino habka ay u dhaqmayso waa inay wax ka bedeshaa haddii rabto inay tahay maamul goboleed dastuurkan halkan yaalo totally waa qaldan yahay aniga aaminsanahay waxaan loo baahan yahay in dib loo qoro si ummadda aysan iskugu dhicin midda kale jamhuuriyadda Soomaaliya ma yeelan karta ra'iisul wasaare sida aaminsanahay Soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweyne kaliya sida Mareykanka kale inaan u dhaqanno oo wasiiradu dhan asaga soo magacaabo iyo baarlamaan sharciga ilaaliyo madaxweynaha la ilaaliyo beelaha ay soo heshiiyaan beelaha ma dagaalsana Soomaaliyeed doorto inay wax noqoto laakiin beelaha Soomaaliyeed ma dagaalsana xaqiiqa maya aniga ma dhahay aniga wax ka wada ku siyaasiyiinta guul daraysatay adiga oo taageero siyaasadeed siinaya waxa la isku hayaa waxa loo dagaalsan yahay ma aha siyaasad waxa lagu dagaalsan yahay waa qabaa'ilka Soomaalida lagu dagaalsan yahay Puntland eedaynayso aniga aragtidayda ciidan ka qarinaya ma jirto waxaan nin dadka u sheega waxaan aaminsanahay Puntland waxay ka mid tahay qabaa'ilka Jamhuuriyadda Soomaaliya haddii qaybaha ka soo jeeda deegaanadaas iyagu maamul ay heshiis ku yihiin ay sameysteen kuwa gobolada koonfureed ee Soomaaliya adiga hadda meesha ka soo jeedid oo magaalada Muqdisho meesha ka soo jeedid canshuurta laga qaado maxaa Soomaaliya oo dhan loogu masruufaa oo min walbana maamul goboleed u sameeysto oo masruufkiisa u qaataa maxaa taada uga hadli laadahay taada adiga maxaa uga hadli laadahay su'aasha aan ku weydiiyay waa taas ma su'aasha aan ku weydiiyay ka jawaab caasimadu cirka kama imaanin ma caasimada cirka kama imaanin caasimada dad degan dad iska leh dal kasta oo dal kasta oo dunida ku yaala dadkiisu waxay ku wada joogaan dad qoyskayga Ilaahay wuxuu ka soo saaray magaalada Muqdisho dadka Soomaaliyeed inay ku wada jiraan dareenkeedu waa qabnaa kulli arinta waa saas sheekada oo soo noqonayna waa tahay waxaad og tahay in xaaladdu meel cakiran marayso waxaa tagay shalay Muqdisho Ban Ki-moon wuxuu la kulmay madaxdii dawladda markii aan la hadalnay dhinacii siyaasiyiinta ee taageersanaa madaxweynaha waxay noo sheegeen waxay iyagu jecel yihiin dhinaca ra'iisul wasaaruhu markaan la hadalnay waxay noo sheegeen waxay iyagu jecel yihiin oo kulanka ka soo baxay adiga markii aad aragtay khudbadii Ban Ki-moon
sida ay wax u dhaceen aragtay ase Soomaali ahaan maxaa kaaga soo baxay wuxuu leeyahay haddii aan in yar ka sheego hadalkii Ban Ki-moon wuxuu ahaa waxaanu idiin sidnaa 2 farrimood oo kaliya marna waxay la tahay 2 farrimood halkan ay ku qoran yihiin iyagoo og xaaladda siyaasadeed ammaan iyo horumarada ama caqabadaha hor yaalla dhammaantood muxuu ahaa in caalamka intiisa kale ay u muujiyaan inay Soomaaliya la garab taagan yihiin taageero inteeda la eg qodobka kale wuxuu yahay gudahaan jeclaan lahaa inaan ka arko mana ujeedo laakiin wuxuu leeyahay waxaan aad uga walwalsanahay xaaladda humanitarianka yani xagga bini'aadanimada ay ka taagan Soomaaliya in ka badan 3 milyan oo dad Soomaaliyeed ayaa u baahan maanta arinta aan rabo arinta kale waxay tahay siyaasadda wuxuu leeyahay the country is coming together like never before dalku يعني isqabsanaya wuu leeyahay especially I commend the agreements from the regional administrations heshiisyada ay gaareen maamul goboleedyada dawladdu ay la gaartay iyo muxuu ahaa wuxuuna codsaday in lagu daro maamuladaas iyaga ah wakiilo ka socda haweenka Soomaaliyeed yani marka asaga isku mashquul khilaafkoodu waa ku jira meesha dhowr badan baa igu soo noqnoqonaya mikrofoonka iyo garan waxaan jecelahay inaan kuu sheego arrintu say dadka Soomaaliyeed u fasirayaan ma aha marka 2 qof isqabataana isagoo qabiil yani taageeraya oo qarsan waay Cabdullaahi Raagan ka maqli jiray iyagoo qabiil shiranayay qaran u heesaan iyagoo qabiil shirinayay qaran u heesaan marka isqabad u yimaado gurbaanka qabiilka meesha laga saaran dadka dhihi lahaa waxa isayaa waarag maslaxadiina haday yihiin ka u adeegaya isqabsho ma imaateen wala isqabtaa kala fikir doonaanshiyo waa jira laakiin xal gaara dhawqiisu dawladnimada ta soo gaarnay markale aan ku noqono telefoonada hello waa ka xunnahay waxaad moodaa in xogaa cilad ay nooga jirto telefoonka hello ha walaal magacaaga السلام عليكم وعليكم السلام magacaaga noo sheeg walaal walaal magacaygu waa Nadiifa Cali London baa imika la soo hadlayaa nagaara haye walaal iyo xildhibaanka iyo wiilkaba waa salaamaya haye marka arrinta horta waxa weeyaan madaxda sare haddii ay qabtaan soo xildhibaan ka dhawaajiyay waa sax in aan meeshaas aysan imaanin kana micnihi aniga ila saxsan iyo kana ila qaldan iyo aysan imaanin Soomaali baan nahay horumarka Soomaaliyeed baan u wada taaganahay nin jeclaysiga iyo qabyaalada la iska dhigo baraayo mareysarka iyo madaxweynuhu waa dadka maanta dalka Soomaaliya horumarkan gaarsiinaya oo u wada jeedno marka aan iska dhaafno nin jeclaysiga madaxweynahana waxaan ka codsanayaa iyo baraayo mareysarkana inay isu tanaasulaan horumarka Soomaaliyeed waa ayagii inay haye hello waa ku maqlaynaa walaal hello walaal marka waxaan u baahanahay in baraayo mareysarka iyo madaxweynuhu ay isu tanaasulaan ayagana aan ka codsanayaa oo horumarka ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay niyad jabiska iyo niyad xumada joojiyaan ay hawsha say isla wadeen oo Soomaaliya ay isu haysteen ay isla wadaan laakiin haddii maalin walba la yiraahdo madaxweyne iyo baraayo mareysarka isku dhagan 2015ka dastuurka la ansixinayo lama gaari karo 2016 oo aan rabno in afka qof walba ay hibato lama gaarayo haddii la yiraahdo hadda kadib iyo xukuumad cusub iyo baraayo mareysar cusub iyo hala soo dhiso annaga dan nooma aha shacabka haddaan nahay waa tahay waxaan ka codsanaynaa madaxda sare inay isu tanaasulaan waxay baraayo mareysarka hore saacidaan ogeyn inaan dhahaynay oo dawladda ka codsano federaalka ah inaan baraayo mareysarka hore saacid aan la cagsilin marka waxa weeyaan mar walba dib u dhac shacabka ayuu ku yimaadaa waa tahay Soomaali waa dhiban tahay ilaa iyo xerooyinka qoratida ku jiraan siyaasadda hana lagu joojiyo waa in siyaasadda la xalfiliyo waa in gacmaha la isqabsado madaxweynaha waa ka codsana baraamarka waa ka codsana inay labadoodu gacmaha is wada qabsadaan oo shacabka Soomaaliyeed ay u jareeyaan jeclaysigana la iska iloobo waa tahay nadiifo aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal fakarkaaga aad soo jeedisay ku wajahnaa sida
ay kula tahay in madaxda dowladdu ay uga fakeraan shacabka arrimihiis waxaan maraynaa gabagabadii waxaan jecelahay bal mar walba waa la isqabtaa haddana meeshii ugu xumeyd bay maraysaa maxaa taloo aad jeceshahay inaad usoo jeedisid runtii aniga waxaan kula talin lahaa tara isqabqabsigan waa wax aan dhamaanin oo soo noqnoqdo marka golaha shacabka Soomaaliyeed baarlamaanka ayaa waxa looga baahan yahay in arintan ay ka fariistaano iyo mudane Jawaari ay arin degdeg ka soo saaraan ayna isqabsiga labadoodana ee baarlamaanka la keenaa oo baarlamaanka cod kalsooni loo qaado xukuumadda ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha labadoodaba haddaysan munaasib ku ahayn in ummadda Soomaaliyeed hogaamiyaanana meesha labadooda laga qaado waa tahay maxaa ku soo gabagabeynaysaa Cabdicasiis halka jamhuuriyadda Soomaaliya kuma jiro waqtigan adag ee shacbiga Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin waxay caalamka intiisa kale indhaha ku hayaan 3 milyan ee ruux ee Soomaaliyeed ee baahiyaha la jirta dariiqyada guud ahaan Soomaaliya ku yaala gaar ahaan koonfurta Soomaaliya waxaan madaxweynaha Soomaaliya His Excellency xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed jeclaan lahaa inaan shacbiga Soomaaliyeed aniga oo ku hadlayo codkooda caawa ku dhiirigelin lahaa inay si dadnimo ku jirto oo gobonnimo ku jirto inay u xalilaan lagana gudbo masiibooyinkii yacni ragaadiyey horay socodka qarannimada Soomaaliya daawadayaal inta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka xog waran oo aynu kaga hadlaynay arrimihii ugu dambeeyay siyaasadda Soomaalida iyo khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya barnaamijka waxaa igala qayb galay Axmed Liibaan oo ah muxallil siyaasi ama qof ka hadla arrimaha siyaasadda Soomaalida aqoon-yahana degan UK gaar ahaan magaalada London waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb galay Cabdicasiis Xildhibaan oo isagu ah qoraal Soomaaliyeed wax badan ka qoray arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka Soomaalida kana hadla arrimaha xaaladaha Soomaaliya marba heerka ay marayaan aad baa u mahadsantahay Liibaan daawadayaal barnaamijkii waa naga intaa waxaan noo farsameynayay Axmed Yare anoo nadaara idinla socodsiinayay toddobaadka soo socda inta aan barnaamijkan lamida ku kulmayno haddii Allah uu dilay ka raali noqdo waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh